kulankan oo ujeedadiisu ahayd mid lagu tacsiyadeynaya eheladii qaraabada iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay Allaha naxariistii janna ka waraabiya askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo lagu dilay mashruuca biyo ballaarinta galbeedka magaalada Boorama ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland gudida nabadgelyada gobolka Awdal aqoonyan iyo badi hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland iyagoona sheegay inay ka xun yihiin falkaasi isla markaana carabka ku dhuftay in lagu raajoogo cidii geysatay fal dambiyeedkaasi sidoo kalena ka tacsiyadeeyay eheladii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland oo ka baxay marxuumku waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo aan doonayaa inaan hadal ku bilaabay iyadoo mas'uuliyiintu ay ga dambeeyaan in aad iyo aadan uga xunahay haddii aan ku hadlaya afkii golaha deegaanka degmada Boorama iyo shacbiga degmadaba in aan aad uga xunahay in askariga gacanta ka gardaranay dishay online horta marka hore samir iyo iimaan Allah inaga siiyo waxaanu isugu nimi halkan awalan waxa weeye waa tacsida aynu tacsideyno eheladii iyo qarankaba ee uu ka dhintay ninkii askariga ahaa ee ku dhintay shalay halka lagu dilay gacanta ka xaqdaran dishay waan tacsideynaynaa gobolka guud ahaan dadka biyaha geystay magaaladii wax u geysteen iyo gobolka oo dhan bay dileen ma dilin qof kaliya waxay dileen dadka gobolka degan oo dhan bay dileen waxaan mar koowaad iyo mar labaad bid ku waabinayaa in arinta gacanta la saaro oo aynu xaq u soo jeesano la qabto dawladda shayba sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay sheekhu beledka gobolka Awdal Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed waxayna tilmaameen waxa la wixii waxa geystay inaan maxay hayday kolka la baaro ee baaristii gacanta lagu hayaabaa la yiro laga hordhici maayo in tilaabada sharciga islaamnimada laga qaado qadarka ilaahayna isma hortaagi karo inay maanta taasi nagu dhacdana caruur iyo ciiroolaba waan ka xunnahay ilaahayna ka sabir gelsiyo annagana hanoo gargaaraysan ninka u qaban lahayn cidii gacanta geysata u qaban lahayn insha Allah qaar kamid ah hoggaanka dhaqanka gobolka Awdal oo kulankaasi ka hadlay ayaa cambaareeyay falkaasi sidoo kalena sheegay in gacmaha la isku qabsado sidii loo soo qaban lahaa cidii geysatay si sharciga loo mariyo Allahna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sabir iyo iimaan Allah ka siiyo warisadii uu ka dhintay ilaahay ha u gargaaro بدل خير كمان الله سيو قضية ما تعلق كدعدي هو مركي ومضى دون تعدي هوشها قبطي أدي بن عمبارين وحكو بورينا حكومة يعيد كستو حق ولا أرنتها يدا دبقل كيجا أنا هوشها سعد إن أي قبطه أيان حكومة له إنك ما أنت أرنتها قعنتها جيس وحالي مدي بيه تاي مشروعاتها وحويان nin Boorama dilay dhammaanteen boorta samiriya iibaan ilaahay naga siiyo ninka way naga wada baxay nin naga dhintay weeyaan nin qabiil nin xaafadeed ma ahayn nin qaran buu ahaa sidoo kale gudoomiyaha boorka shirkadda biyaha Boorama ee Shaaba Maxamed Nuur Faahiye iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa carabka ku dhuftay anigoo ka hadlaya magacayga magaca shirkadda Shaaba waxaan horta u ducaynayaa marxuumkii geeriyooday ee gacanta ka gardaran ay dishay ee isaga oo qadiyad adeeg qaran fulinaya lagu dilay oo direyskii u xidhan lagu dilay horta isaga ayaan u ducaynayaa laakiin annagu wasaaradda waxaan leenahay si degdeg ah hawsha waxa lagu qabto si degdegana aan u bilowna insha Allah ta'ala in magaalada Boorama biyo ay ku taamaysay inay heli doonto hadda dawaan naqaanay mashruucadu meel ka istaago meel kale oo ka soo hilaaci doona marka waa talo gudeed talada gudahana runtii maanta waa talo fadhiyo waan garab taaganahay dhilada iyo dhunkaashana waan diidanay runtii sala sheegayna waxa hay'adun arrin ma garanaysaa shakhsiya ما هي شرقول دبيدس إلى يمكن كوها إنه واحد ويصبح دونان وزير وزارة الجناحسك ورشدها يد الحيس كسوماليلاند محمود حسن سعد ساجن أو كلن كاسكاد أيات تعسيدية الذي قرابة يقرن كسوماليلاند وكبحي مرحومكو ورتوها سيجارو تعسيدينيا هذا مرحوم كبح
qaranka Soomaaliland guud ahaanna uu ka baxay waxaan anigu aaminsanahay markaan warbixintiisii helay geesi baa ka baxay war waxa weeyaan ummadda si badan oo biyaheedii heshay oo ilaahay samada uga keenay moogtay dariiqii Jabuuti ilaa halkaan inuu sameysmo oo iyada ku ciyaaraysan eegna arinta waxaan leeyahay reer awdalow guud ahaanba u soo jeesta hawlahan ina gacan bira la saaro gaar ahaanna kuweena ku qalloocatay mujaahidiinta ee xoreynaya ya runta aan isku sheegno shaqo wayna qabanaa ugu dambeynna waxa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan le waxana uu yiri tanna waa laga wada xun yahay gacan ku dhiiglihiina raadkiisa sida wasiirku sheegay waa la hayaa halku galab oo laga soo qabanaya wixii shareecadu ka ogoshahaana la marinaya waxaad idinku ka yeeshaan mooyaan taana waa naga bishaara abtiyaal kullu nafsi daa'iqatul maut naf waliba way dhimanaysaa dheecaankiisana maalintii qofka la abuurayay baa la qoray halku ku dhimanayo askarigaasi askari qiimo qaranka ku leh oo sidii professor Saleeman sheegay gobolkan qiimo ku leh oo askarinimadiisa iyo shaqadiisa daacad u ah ku dhiiran aaminsan ku dhimanayo waanu ku dhintay gacan ka gartaranina way jirtay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama